عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaad ku soo dhawaataan warkaas waxna ay lamidaya qodobada aad ku daawan doontaan anaguna ku hayno waxa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qaabilay maamulaha guud ee hay'adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka maamulka Jubbaland oo ka hadlay dil xalay lagu geystay magaalada Kismaayo nabadoon deegaanada caanka ah saraakiisha xafiisyada hay'adaha qaramada midoobay ee Soomaaliland oo isbedel lagu sameeyay guddi loo magacaabay dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb madaxweynihii hore ee Masar oo ku geeriyooday dalkaasi Mareykanka oo faahfaahin ka bixiyay duqeymo ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Dhexe qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkaas waxna ay lamidaya u diyaar garooba asagii oo dhameystiran رئيس الوزراء حكومة فدرالك آهي صوماليا حسن علي قيرة يا قابلي معمولها جود هيئة هرمونية عالمية آهي مريكان كUSAID مدن مارك كرين يجو سوى ذجرة وجود واقعي بهولجرين تحرنتو USAID الصوماليا أو الله حريص نضي يكون سجال بقول سجاشني كودي رئيس الوزراء حسن علي قيرة يوصيده كله معمولها جود هيئة هرمونية عالمية آهي مريكانكا يا كوضا هاللي ددالدا أي حكومة فدرالك آهي صوماليا وجود جرتو دي بسوق بشرة دقالها دين عفينتا يدي بهابينتا هنان كمالية دي الدلكا سلو حقيقيو كوع دقالي أو وارع رئيس الوزراء حسن علي قيرة يا تلمامين حكومة ديسو أي مدنانتو كوات سينيسو سيدا أمد الصوماليات لو جارسين لها اسكو فيلناشو يدي بسوق بشرة دقالي إسلامر كان أي سو دوينيسو ودشاقين تهيئة هرمونية عالمية آهي مريكانكا dhankiisa mudane Mark Green ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay howlaha ay hay'adda USAID ka wada Soomaaliya iyo qorshayaasha lagu dardargelinayo mashaariicda lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed si ay uga baxaan saboolnimada iyo shaqo la'aanta una gaaraan isku filnaansho dhanka dhaqaalaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa tacsuud diray qoyska iyo eheladii uu ka baxay Allah u naxariistay nabadoon Cabdulqaadir Ibraahim Xasan oo lagu dilay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland madaxweynuhu wuxuu Allah uga baryay nabadoonka in jannadii firdawso oo uga waraabiyo isagoo dhinaca kale hay'adaha ammaanka faray in baaritaan degdeg ah ay sameeyaan gacantan ay ku soo dhigaan kuwii ka dambeeyay falka lagu dilay Allah u naxariistay nabadoon Cabdulqaadir Ibraahim Xasan ilaahay hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka caawa Kismaayo lagu geystay mid kamid ah nabadoonada ugu caansanaa deegaanada maamulka Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxda cusub ee hay'adda UNICEF iyo UNFPA oo hay'adahaasi u qaabilsan Soomaaliya kulankan ayaa lagaga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka qaramada midoobay ee Soomaaliland ka dhaxeeya dhinaca arrimaha bulshada iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka wada gudaha deegaanada Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka maamulka Soomaaliland oo saraakiisha ku soo dhaweeyay maamulka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa maadaama ay ku cusub yihiin xafiisyada UNICEF iyo UNFPA ay ka howlgalaan Soomaaliland iyagoo bedelay mas'uuliyiintii hore ee xafiisyadaasi ka shaqeynayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magacaabay guddi laga soo xulay golaha shacabka kuwaas oo qiimeyn ku soo sameyn doona dadkii dhawaan lagu dilay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug guddigan oo ka kooban 13 xildhibaan ayaa bilaabaya xaqiiqo raadinta waxa sababay dadkaasi oo intooda badan ka soo jeeday deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hadaba warqadda magacyada ee uu soo saaray markaasi magacaabista gudoomiyaha baarlamaanka oo guddiga uu ku dhawaaqay ayaa u qoran sida tan ujeedo magacaabid guddiga xaqiiqo raadina gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya markuu arkay dhibaatada ka dhacday magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ee lagu dilay dad shacab ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee loo baahan yahay in la qabto si loo badbaadiyo nabadda guud iyo xasiloonida markuu tixgeliyay soo jeedinta iyo warbixinta golaha shacabka kala fadhiga shanaad kulankiisa 18aad kuna taariikhaysan 15 bisha 6 2019 markuu garabsaday baahida loo qabo magacaabida guddi baarlamaani ah oo qaabilsan dardargelinta hawsha xaqiiq raadinta si waafaqsan qodobka 33aad farqadiisa shanaad ee xeer hoosaadka golaha waxa uu magacaabay gudoomiyuhu xildhibaan Cali Sheekh Maxamed Nuur xildhibaan Maxamed Cumar Aymo xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afraale xildhibaan Maxamed Nuuraani Bakar xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim xildhibaan Sandere Maxamed Iftiin xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse
xildhibaan qaalid macow cabdulqaadir, xildhibaan maxamed cabdulle faarax geyse, xildhibaan axmed macali fiqi, xildhibaan ali jaamac jangale, waa xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji iyo xildhibaan maxamed aadan mucalin. madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa ku geeriyooday magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar kadib markii uu ku soo muuqday maxkamad ku taala dalkaasi. Maxamed Mursi ayaa xukunka Masar waxaa looga qaaday afgambiga militariga waxaana geeridiisa baahiyay telefishinka Al Arabiya. Maxamed Mursi ayaa waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doortay waxaana 2013 loo taxaabay xabsi kadib markii talada dalka looga wareegay afgambigii militari oo hogaaminayay madaxweynaha haatan dalkaasi Masar xukumayay Cabdifataax al-Siisi. ugu dambeynna saaxiibayaal militariga Mareykanka ayaa sheegay in laba duqeymood ay ka geysteen nawaaxiga magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe kuwaas oo ay ku direen laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeymo dhinaca cirka ah oo Mareykanku ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka uu kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 16 bishan June ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen nawaaxiga magaalada Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen laba xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana ku sugnaa goobaha la duqeeyay. Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya waxaana duqeyntii ugu dambeysay uu dhawaan ka fuliyay deegaano u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa intaas ku eeg saaxiibayaal warkii subaxnimo aad ka daawanayseen Hilo Media. fadlan si aad ula socoto wararkeena iyo muuqaalada xiisaha leh aan soo gelino page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay ee Hilo Media, fadlan subscribe saar hana hilmaamin inaad share gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada si ay ayaguna u helaan xogaha dhabta ah ee la xiriira Soomaalida iyo caalamka oo had iyo jeer aan ku soo gudbino barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee Hilo Media iyo muuqaalo xiiso leh.